سودو هذا صاحبي ورمجرو هداد وجد صومالي إن السكوديلو دلك قرشيسن هداد وجد صومالي إن السكوديلو قرحيضة هداد وجد وحيابك اللي دوين السكوم ملايقو مركان شركة أنت أصلا داود الوي كسو قدبت أنت مقالك كسو قد بين كار فلان داود مقالك لاقدي سيدت بدل وجارو مقالك نسي شاكرين waxaa soo kordhay daawadayaal taleefan aan la aqoon meel uu keenay qofka waa la soo wacayaa markuu qabtay isla markiiba daawaday sanka ayuu dhiig ka keenayaa maskaxda ayaa dhiig ku furmay guud ahaan gobolada Soomaaliya iminka waa laga dareemay caasimadan waa laga dareemay daawaday marka adiga shakhsiyan waxaan kaaga digayaa taleefan eber 99 ka bilowda hadduu ku soo waco kor ayaan ku soo dhigi doonaa hadduu ku soo waca ka qabanin muuqaalkana waa muhiim qofka guriga kula jooga saaxiibka iyo qof kale garanaysidba ina u sii shargareys waa ku muhiim asaati daawade dhacdadan qaabkay ku timid iyo taleefankan sidoo dadku u wacayaba iyo dignin la xiriirtaba cod la xiriira ayaan ku soo gudbinayaa baleeyada daaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبناد وايدين سلامي قبلهني ويلاشين ميل كستا ادويدا aad ku sugantihiin dalka iyo dibadaba waadin salaamay salaan sharaf salaan qaali ah waa walaashin xabiiba yarey waxa saaka la ii soo sheegay Afrika Soomaaliya taleefankaas aan idin soo diray walaalayaal lambarkaas waa laga shakiyaa qabanina qof kasta yuusan qabanin lambarkaas waa lambar qatar ah hadda gobolka gada maanta 5 qof baa hadda saacad koor nafta ka baxday dhagtu dhiig ka sii deena halow markuu dhaalayo qofka maskaxda qarxayso wuxuu ma garanayna bal lambarkaas la iska ilaaliyo wakaas wasaaq waa la ii soo diray dad aan garanayo oo waliba family-kayga ku dhintay marka iska ilaaliyo lambarkaas aan la qabanin ogaada lambarkaas Soomaaliya dhan buu soo kale Soomaaliya lagu leenahay waa wax nuclear ku xiran yahay balaayaha la yiri marka lambarkaas la iska jiro insha Allah qof kastana u sii dira dadkoo dhan uga diga marka ogaada wadan iska bililaqo iska seel waay waxa wixii la doonaa lagu soo xirtay marka bal insha Allah hadda tan waana lagu dayahay bal xaaladaas halala socdo lambarkaas aan la qabanin qof kasta oo wadanka joogana ya maxaa ku leeyahay qofka ugu yar oo saaka aan wacay wuxuu ku dhahay 3 jeer buu lambarkaan soo wacay lambar la yaqaanana ma aha meelu ka tirsan yahay lama yaqaan waana la baaray waa lambar meel balaayo ka yimid marka insha Allah lambarkaas la iska ilaaliyo qofku soo waco lambarka telefoonka iska fiir lambarkaas qaban hadii kala waa dhimad hagaag daawad waa filayaan muuqaalka si fiican aad ula socotay muhiimadda ujeedadana ka dhacday dhamaadka sheekada hadda nala soo gaartay marka la hilmaamay muuqaalkana laag dhaado saaxiibadana aad u sii sheergareyso maadaama digniinta adiga ay ku soo gaartay ogeysiis muhiim ah cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weyso dareemaha qaar kamid ah jirkaaga waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibiryo joogto ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose kadibna halkaasi uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanayo dhakhtar aad ugu xeel dheer kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siiriyaan asagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa Tarabuunka iyo Digfeer ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid